السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته وادين سلامي جمعة وناكسن إن شاء الله بإذن الله ملك استوى الدنيا أدوغو نوشين فرحتكو قاتا جمعة دان إي جمعة لميد إن شاء الله بإذن الله معنات البرنامج كو حان رباينا وكسو قاتو إن لبا وحيابات لبا دس وحيابات محلها ديني مالين اعتكاف يو حان رباينا وكسو قاتو استقارة صلاة الاستقارة aan rabo barnaamijka inaan kusoo qaato marka ma sha Allah tabarakallah maanta maadaama ay maalin jimca ay tahay insha Allah waxaan ku hormarayaa ducada mustajaabka ah maalinta jimcaha iyo siyaabaha maxallahay ducadaas maxallahay loo maro shuruudaha yani ducada waqti kasta oo duceysan kartaa laakiin ma sha Allah hadii aad i'tikaaf samaysid maalinta jimcaha ducadaada Ilaahay si degdeg kugu aqbalaya wax ka fiican ma lahan in Ilaahay loo dhawaado oo sida Ilaahay raali ka yahay in la sameeyana wax ka fiican ma lahan ma sha Allah marka asxaabay insha Allah biidnillah i'tikaafka waxa sameyn kartaa xilliga adiga horta aad jaanis leedahay ha ahaato salaada subaxi ilaa iyo duhurkii hadii aad awoodid duhurkii ilaa iyo maxallahay casirkii ilaa iyo maqribkii hadii aad maalinkaas oo kale dhan aad ma sha Allah fadhin karto quraan ina aqrisato aad duceysato oo ma sha Allah yani aad Ilaahay u dhawaato insha Allah din muraadkaada Ilaahay ku sahlaya hadii aad awoodid maalintii oo dhan horta ina fadhisid waa ka sadaadan awoodina salaad subax ilaa iyo duhur ilaa iyo casir ama ilaa iyo maqrib marka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Ilaahay kalif ma abuurin waqtiga adiga aad awoodid insha Allah ka dhigo ka faa'iideysi jaaniska maalinta jimcaha ah iyo ku dhaafin ducada mustajaabka Ilaahay u dhawaasho adduunyo aakhir waa loo baahan yahay ducada insha Allah biidnillah mid labaadna asxaabay waxaan rabaa inaan ka hadlo salaatul istiqaarada dadka badan maxallahay waxay sameeyaan salaad way tukadaan laakiin ducada ma aqristaan ducada waa muhiim oo ma sha Allah maxallahay ducada yani Ilaahay aad weydiisanaysaa waxaas inuu khayr ku yahay mustaqbalkaada dambe wax kasta yani ducada ay qusaysaa ma fahanteen marka ducada insha Allah biidnillah kitaabkan yarkay ku taala oo xusnul muslimka ah waa u jeedaan u maleeyna marka ducada insha Allah ducada akhrista bismillah ducada hadda guda galeena bismillah اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أمرك أسبرك جوكتد أو عرفت شيء جناس أمرك هدو جوري هاي هدو سفري هاي هدو جناسي هاي أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدره لي الخير حيثما كان ثم أرضني به marka insha Allah باذن الله ducada meeshaas ku dhamaatay insha Allah waxay Ilaahay idinka gabariyay muraadkiin inuu Ilaahay idin sahlo si fudud oo sahlan marka ducada istiqaarada hal akhristo hadii aad xifdisan tahayna sujuudaad ku akhrisan kartaa hadaa xifdisanayna kitaabka inta dhigato maxalla sujuuda hortiisa marka aad taxiyaadka dhigto kitaabka oo soo qaadan kartaa waa akhrisan kartaa wax dhibaato ah ma lahan marka insha Allah biidnillah ka faa'iideysta sidaas iyo nabadgelyo asxaabtu maxallahay waxaan ka codsanayaa horta waxaan leeyahay al-ibtisaama fi wajhi akhiik sadaqa wal kalima tayyiba sadaqa yani ibtisaamada oo qofka oo walaalka ah aad u dhoola cadeynayso waa sadaqo magarateen hadalka wanaagsan waa sadaqo insha Allah biidnillah dhiirigelin iyo soo dhaweyn iyo wax kasto ay idinka rajeynaayo insha Allah biidnillah marka man nashara hada al-maqta' min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib qofka videoga faafiyeen insha Allah ducada sirta ugu talagalay Allah yas'idkum dunya wa aakhirah insha Allah